weligaa ma isweydiisay waxa isku xidhay hasha maandeeq iyo xornimada Soomaaliya? Hasha maandeeq waxay ku suntan tahay gobonnimo, madax bannaani iyo masiirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. qof kasta marka uu maqlo aan maalno hasheenna maandeeq waxaa ku soo dhaca astaan ummadeed. Soomaalida dhaqan ahaan waxay ahayd ummad aad u qiimaysa geela, waxaana ahaa mid loo dhinto loona dagaalamo. sidaa aawadeed ayaa gobonnimada ummadda lagu masaaleeyey hasha maandeeq, maadaama gobonnimadu ahayd waxa loo dhinto loona dagaalamo. ilaa bilowgii halgamadii gumaysidiidka ayay suugayaanada hasha maandeeq dadka ku gubaaban jireen, waxayna hal abuurrada ogaadeen ficilka iyo dareenka ka dhalan kara marka dadka looga baaqo difaacidda geela. sannadkii 1943 xisbigii SYC ee markii dambe SYL noqday ayaa loo aas-aasay halgankii gobonnimadoonka, waxayna hasha maandeeq ka dhigteen astaan la baadi goobo lagu soo hirto lana wada difaaco. waxaana si farshaxana gumaystihii dhulka Soomaaliya haystay loogu mataliyey dhurwaa dhagarqaba ah, halka gobonnimadii laga dhigay hasha maandeeq. siyaasadihii la dagaalanka gumaystaha iyo faafinta fakarka gumaysidiidka waxaa kaalin weyn ka qaatay suugaanta oo markaasi u dhigantay social mediaha maanta oo bulshooyinka lagu kiciyo. waxayna gobonnimadoonka xilligaasi isku lamaaniyeen gobonnimada iyo geela, ayagoo kobciyey fakarka ah sida geela lagu dhinto ayaa gobonnimadana lagu dhintaa. waxaana hashii maandeeq laga dhigay buunkii la yeerinayey laguna kicinayay dadweynaha. sannadkii 1940 ayay ahayd markii abwaan yuusuf xaaji aadan uu tiriyey mid ka mid ah heesihii ugu horreeyey ee gobonnimadoonka, waxaana midhaha heesta ka mid ahaa haruub nin sitoo haraadanoo hashiisa irmaantahoo la hor joogaan ahay. abwaantima cadde ayaa isna ka mid ahaa sugayaannadii hasha maandeeq u gabiyey. ugu dambayntii ummad weliba iyo halgan weliba oo aadanaha galo siday astaan u leeyihiin ayay hasha maandeeq astaan ugu tahay gobonnimada iyo xornimada Soomaaliya. waana sababta mar kastee loo saaro maalmaha xorriyadda heesta ah aan maalno hasheenna maandeeq ee uu ku luuqeeyo ilaahay ha u naxariistee Maxamed Axmed Kuluc. waana hees ku caan baxday hanashada gobonnimada Soomaaliya.